السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غارت شرفت لك سو دواada YouTube page-keena. Maanta waxaan isla falanqeyn doonaa kulamadii isbuucan la dheelay iyo kooxaha Arsenal iyo Chelsea iyo Liverpool maxay sanadkan damacsan yihiin. Oo waxa waaye sanadkan sidii laga filayay horta Arsenal waa runta Chelsea iyo Liverpool wixii laga saadaalinayay sanadkan iyo sidii noqon doona laga saadaalinayay si ka duwan ay ku socdaan. Marka kooxahaas ayaa isla falanqeyn doonaa iyo formkooda sidoo yahay. soo dhawaada mar labaad YouTube page-keena like share iyo subscribe-ka naga ilmaamina hadda halkaas ugu gudubno hadda ku bilaawno kooxda Arsenal. Horta Arsenal miisaanka culus waxa waaye kooxda laga shakinayo ma ahan oo 3 season oo la soo dhaafo waxa waaye kaalinta labaad ku dhameystay Premier League hal dhibic iyo laba dhibic looga qaaday. Formkooda waxa waaye meeshiisa ka sii socda oo 2 sano la soo dhaafay formkooda sidii uu ahay si ka sii fiican oo hadda noqdayba. marka waxa waaye Arsenal أول بشك يقوم يجرون إنه فهم كذا صح نقد أنا أو معناها فهم في يعني وقبل لعبة دونا سنة كا ساعد على أركيسين سجاش إنك حاول لبا إهد لحد غيره الوضري لبده يقولوا كذا ترشدين مركني ما كاسو حاول كوح إنه يقول يسنة سامع ملف يعني جارس وعلو قرطارته مركي يقولوا له ولا أما مركي بربرنا على الجيل رب سيد وديلان ما كاس إلا غد قدام بسواد دق على من afar iyo laba xitaa ciyaarto Frimbiga Albitra uu afka geliyo oo inuu dhameeyo bis uu dhimanta goolka afraad ee dhashadeen. Marka waxa waaye nimankaas waxba laga maqan karo Arsenal nimankii City hayna waxa ku fitaanay bilaabeen Ja Rodri kulankii koowaad uu maqan yahay waa ku bilaabatay waabin hore waa lagu dhago ogeed. Marka waxa waaye Arsenal sanadka inay ka faa'iideysato ayay macna u baahan tahay laakiin waxa Arsenal ku dhaganba Chelsea niman la dhaho iyo niman Liverpool la dhaho oo lisdheeyna sanadkan tartan iyo wax u dhow ka soo qayb gali doonaan. Sababtiin Arsenal kulanka cali 4-2 ku badas waxa ka sii horta Arsenal laga badiyo goor ugu dambeysay kulan walba 4 gool 5 gool ay dhaliyaan. Maalin hore Bolton u baxayeen Carabao Cup-ka 5 ay ku dhufteen City Barrage ku qabteen ka sii hor ay Atalanta Champions League ay waxa ku liitaan Arsenal waa bal yaqaan Champions League haday tagto spirit ma walaabo waxa waaye yani history iyo taariikh ama Champions League ugu dheeraad ma waxaas dhan ma laha. marka Atalanta kulanka isku dhigtay meeqa kulan oo weyn hadda Premier League already ay dhashay macnaha natiijo fiican ka kaasad City dhibic ay ka soo qaadatay oo waliba ayada dhibicda laga qaatay waa dagaalantay guul u qalantay Rossi qaadatay Tottenham way ka raasay waxay kaloo ka raasay Aston Villa way ka raasay kooxo waaweyn waa waxas dhan halka Man City ee Newcastle ku dhageyso ay Aston Villa iyo Tottenham iyo Man City ay dhibic ka soo qaateen. marka waxa waa nimankaas formkooda waa saxan yahay. Arsenal sanadkan waxaa sidaa rajaynayna oo horena u saadaalinay formkooda sidaa iska sii fiican oo noqon doona daafacooda shubay oo noqday oo waliba gool la dhalinayaan qadkooda dhaxwa aragti ka badaranbo weerarka wax yar ka liitaan weerarkan Raheem Sterling ku soo dirsadeen asagana inuu wax weyn ka caawin doono ayaa rajaynayna. hadda Arsenal meesha ugu gudubno Arsenal la yaab ma balaabo nimanka la yaab kale Chelsea iyo Liverpool waa Chelsea hadda ugu gudagalno anaga Chelsea sanadka waxaa isdheeyna nimankaas waxay ku dhameysan doonaan 7 iyo 8 ay ku dhameysan doonaan. هذا توب 4 كان لو جراب كان سدحاد على فديا يا اسلاه جلسي كان سدحاد فدينس حالي نمن برايتون لا دو جول ugu hormareen nin oo Cole Palmer la dhaho arrin nimankaas ma isaga gadan ninkaas nin Cole Palmer la dhaho xalay 4 oo ka kacay gool looga hormaray leesma waal koox horta inay season kan wax fiican soo wado ku ogaani markii gool looga hormaro reaction-kiisa soo yahay gool looga hormaray leesma waal كول بامرا دقيقة يركض كبريجي أيضا عيارتها لالته فريكي قال له تاي وابا كان وابا كشو بيه بعدنا وراني كاس عادي ما بينالتي هذا وقت دلنا فريكي وقت دلنا تابين وقت دلنا بنانك هدو شوط لو بعض وكسر دلنا وراني كان نيو بلاش لو مسين عياريان كير سنة كان بلاش لو مسين مركز سنة كان عياريان كبريمير ليج إنه قالوا هالس وجرا واحد كليه كورته كان هالاً Rodri De Bruyne inta ka maqan yihiin kaliya inuu wax tar doono Malema. marka nimankaas Chelsea waxa ciyaartoy u joogto 200 ciyaartoy u joogto lama yaqaan ka fiican ka xun lama yaqaano waxa 18 kamid ah u fiicnaadaan Premier League meel fiican ka soo galaan. ana sanadkan waxaan isdhahay Arsenal iyo Man City hada ugu baato Liverpool aka kormaraya kaanta farada United ku dhameysan doonta laakiin waxa wax ka jira male runtii baasha maruusa xaqiiq United 19 ay joogtaa dartaan Chelsea afraad saddexaad joogta Liverpool saddexaad joogta Arsenal laba koowaad ma Liverpool aba koowaad joogta Arsenal iyo labaad joogta City saddexaad Chelsea afraad maalinta marka United meesha waxba kuma hayso iyo macantanaagu
waxaas kaaga sii darno Tottenham aad u ballansan ummadda in hadda markay wada raayaan Man United waa lagu yaqaanaa inay kuftabo marka Chelsea Brighton xalay 4 ku dhufatay oo 4taba waxaa dhaliyay ninkii Cole Palmer ahay maalin horeeto Carabao Cup-ka kuwa kale oo aan la aqoonin 5 ku dhufteen kasii hor waana clean sheet waya kulankan oo Brighton bisaaba gool laga dhaliyay laba gool laga dhaliyay Carabao Cup-ka clean sheet ka soo qaateen maalin hore kasii hor West Ham waxaa waaye 3-0 ugu badan clean sheet ka qaateen Bournemouth soo qaatay Premier League ali eber ugu badan clean sheet ka qaateen nimanka marka waxaa waaye daaficooda xitaa yani daafic waa xun yaal dhigi karma United ka fiican yihiin marka Chelsea form waa sanadkan formkooda ilaa meesha socda arki doonaa kulan walba markay ciyaarayaan waxaas dhaynaa Chelsea qiina waa kulan koran badan kulankan lagu dhigi doonaa wax lagu dhigo ma balaaba waa kala hadana waa Raynoel marka Chelsea waxaa formka ilaa intee sii wada doonta hadii ilaa New Year sanadka cusub ee saan ku socoto bas waa Chelsea imaamadeeda iska dhigaa aniga waxaa waaye nimankaas ma ku dhagay United nasaan u gabgableynayso ayaga top 4 ka siina ayaga iyo Liverpool iyo Arsenal iyo Man City top 4 ka siina anagana maano hadda Europa League u soo baxana nasiiba walaal hadda Chelsea meesha ugu gudubno waa nimankaas hadda Chelsea meesha ugu gudubno waxa ugu gudagalaynaa Liverpool niman Liverpool la dhaho waxaa isdhahay sanadka macallin cusub u maaday ninkii Klopp waa ka tagay waa isku dhaxyaaci doonaan waxa waa ciyaartooyda waxa waa yani markay sanadkan isku dhaxyaacaan sanadka dambe waa kala danaysan doonaan Salah iyo Van Dijk waa tagi doonaan waxaas laakiin wax ka jira ma leh niman Wolves la dhaho xalay waxa la isdhahay Braga lagu qabanaa penalty uga fakadeen oo loo dhigay kulankii ka sii horreeyay West Ham 5 ku dhuftay kii ka sii horreeyay Bournemouth laga raacay kii ka sii horreeyay AC Milan oo gool lagu hormartay ka raacay hay ka sii hor Nottingham Forest ahli eber waraysa halkaas mar leeba ku fahmo inta xasuusta Liverpool wax oo laga raacay wax xasuusta ama lagu dhigay kulankaas leeba ka jiro marka hawaaye nimankan ayagana form waaye Liverpool saddexdaas koox marka waxa waaye sanadkan Premier League saddexdaas kooxaas kale City-dan la sheegayo Rodri season kale waa ka maqnaana De Bruyne waxa waaye ilaa iyo Fernandes laga soo laabanayo waa ka maqnaana dhaawacyo kala jiri karo ganaxya jiri karo oo maxkamadda saaran yihiin laakiin Liverpool iyo Arsenal iyo Chelsea horyaalka saddexdaas u dhaxeeya sanadkan weli Chelsea waxa waaye boqolkiiba boqol maahan laakiin Liverpool iyo Arsenal labadaas u dhaxeeya haddii marka oo Chelsea formka ay wada la leeyahay ilaa iyo New Year-ka ayada naftirkeeda way galayaan leeyahay macnaha in horyaalka u tartanto way galaysaa maxaa u diiday sababtoo nimankan 5 gool 4 gool 3 gool ku badinayaan ayaga oo nimanka intay gool dhashanayaan Arsenal ugu roon xoogay ugu daafac fiican marka qaari maxay la tahay inta inay ku dhamaysan doonaan saddexdan koox horyaalka mid kale to kulamada hadda soo socda hadda fiirino Liverpool kulamada ugu xigo hadda isla fiirino waxa waaye waa kulamada ay ka faa'iideysan karaan waa marka haddii sanadkan hada fiiri kulankan hadda habeen hore ay dheelayaan Wolves ay u baxeen yaa ugu xigi doona kulanka Wolves kulamo fudud ay leeyihiin Liverpool oo Man City iyo Man United iyo waxay soo mareen United wax adag horta ay la soo dheeleen Liverpool United waa la soo dheeleen AC Milan iska Premier League maahan Brentford ilaa hadda waxay kulan adag ay la soo dheeleen horta sida caadiga ah Liverpool waxa ka jiro United oo soo garaaceen marka ayagana waa la arki doonaa meesha ay tagi doonaan Arsenal waa ku soo hartay Arsenal ama koox weyn ahaa ama koox oo City ka weyn ma jirto nimankii City bareejada ka tuugtay oo City ay dhahday warbaahinaya naga bixiyo ma dadkan kala u daa Liverpool ay tumayaan Chelsea tumayaan United iyo xasan iska badaab marka arki doonaa Sissoko waxay ku dhameystaan waxa hadda saa macnaha rasaadintii hore waxa ka bedela number 2 waxa siina Arsenal number 2 City 3 Liverpool 4 Chelsea waxa ka sii dambeeyana waxa waaye Tottenham iyo United iyo Newcastle iyo Aston Villa iyo waxaas waa marka kuwaas faa'iido ma lahan halkaas ayaa ku soo gabagabeynayna falanqeynteena kooxahan saddexdan koox adika maxay la tahay inay ku dhameysan doonaan seasonkan comments-ka nagu wadaaga iyo kooxda aad taageerto comments-ka nagu wadaag like-ta iyo share-ta iyo subscribe-tana naga hilmaamin oo u baahannahay intaas ayaan ku soo gabagabeynaa falanqeynteena wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu